In ka badan 3,000 oo qaxooti tahriibayaal ah iyo maangeliyadoon ah ayaa ku dhintay marinada Mediterranean-ka iyo badda Atlantic-ga sanadii hore, iyagoo isku dayaya inay Yurub galaan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka Jimcihii. Kumanaan Afrikaan ah ayaa sanad walba safarro dheer oo halis ah ku taga Yurub, iyagoo inta badan kasii gudba Saxaraha, waxayna ka baxaan xeebaha waqooyiga Afrika iyagoo raacaya doomo yaryar oo macmal ah. Waxaana dadkaasi ay ka cararayaan dhibaato iyagoo raadinaya nolol dhaanta tan ay ku sugan yihiin. Sanadkii hore UNHCR waxay sheegtay in 3,077 qof ay dhinteen amaba la laayahay, taasi oo ku dhow laab tirada 2020-ka. Waxaan arkaynaa tirada dhimashada oo aad u sii kordhaysa, ayay tiri Shaabiya Maanto oo ah madaxa UNHCR oo shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waa wax laga naxo, ayay raacisay. Ilaa sanadan 2022, 553 qof ayaa la soo wariyay inay dhinteen ama la laayahay, iyagoo intooda badan ay ku dhinteen marinka bartamaha badda Mediterranean-ka, sida ay xogtani muujisay. Dadka dhintay iyo kuwa la laayahay ayaa ka kala yimid dalal badan oo ku yaala waqooyiga iyo kuwa ka hooseeya Saxaraha, sida Tunisia, Morocco, Mali, Ghana, Eritrea, Masar iyo Senegal, iyo sidoo kale Iran, Syria, Afghanistan, iyo sida ay sheegtay Maanto. Safiya Maxamed Ibraahim, Safiya Soomaali, Goobjoog. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog balaaran ma naga siin kartaa? haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato electronic baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka electroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh. dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan ka lumin. qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee Macalin Bimaalow.